hadda ka dawasiin geedkan ay jeedaan waxa la passion fruit waa geedka ugu iga baxaya waxaana ugu dhashay inaan ku beero dalka mar aan u safray dalka Hindiya magaalada Hyderabad gobolka Telangana ismaamulkaas maraan tagay oo dhakhtar hooyo wada ayaan dhakhtar hooyo isbitaalka u booqatay ayaa yiraahday geedkaas si hooyo waxyaabaha calcium-ka ay u fiican yahay vitamin C iyo waxyaabahaas u fiican yahay afka googo kale geedka markuu wuxuu yahay geed dhowr nooc kala baxo waa geed fiican vitaminaadkiisa fiican yahay marka geedka wuxuu yahay isticmaalkiisa badiya xagga xataa raganimada waa cabitaankaas u fiican yahay cabitaan ahaan u isticmaalay saas ayaan dalka u keenay waan beeray waa ka meeshan iga baxaya miro badan ayuu dhalay ilmaha aad ayuu anfacay waa isticmaalay waan lacabaa geedka markay u yaraato bishii ugu yaraan adigu 10 mirood baa dhalaa hadda wuxuu ugu yaraa waxa 20 bilood wax 2 sano 2 bilood dhimano ugu yaala marka waa aad ayuu uga faa'iideystay ilmaha waa isticmaalaan aniga xataa hadda habeenkii marka u yaraato casho inta baan cunaa saddex xabaa inta kala qashan aan galaas caano ku cabaa dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa caqabad dhinaca camal la'aanta la kulma marka ay waxbarashada sare dhameeyaan iyagoo arintaasina ay ku hogaamiso in ay dalka ka tahriibaan geedka markii hadda dadku baadaami wadi cusub yahay oo barasho aan ku wado dadna 10 kun ayaan u xisaabshaa midtiisa oo hadda waa yarta midta weynahaysa dadna 8 kun dad 7 kun dad basi laakiin hadda markii uu joogo wadamadan dariska nala ah halkii saxba ay waxay joogtaa 50 cent oo dollarka Mareykanka marka waxay barasho wax walba in la bartaa ka horeyso marka barashan ku wada hadda dadka in bartaan maqaayada weyn uga soo dabaan waa jiraan hadda dhahan dad ma badiyo noo keentay lacag fiican ka siina waa uu koray kadib wixii ayuu bilaabay shaqo kale oo raba markaas waxa uu bilaabo maalin walba wixii mir soo baxo 5 saac ugu yaraan uu bilaaba waxa uu af kala qaado ilaa 10 saac waxa soo taagnaha xilligaas marka dan laga faa'iideysan oo asal isku bacrimin oo qayb la yiraahdo Poland inta la soo qaado aan istigmada la marin waa ka kacab waxaas waa non fruit waa dhaca waa saxuma gal laakiin hadii laga faa'iideysto oo la marin inta kulalahaas jiro maalintaas gudaheeda ah habeenkii afku isku dhagsanaa laba bil saddex bil ka bacdina mirtiga soo baxayso oo fruitkii oo bilaabanaaba sheekada ku saabsan geedkan ka sokow sidoo kale Cali waxyaabaha kale oo uu qabto waxa kamid ah in uu shinnada xanaaneeyo si uu uga faa'iideysto wax soo saarkeeda malabkan marka laga yimaado ku intifaacsiga isaga iyo qoyskiisa gurigan sidoo kale Cali waxa uu u yahay goob shaqo oo waxaad arkaysaa dhirtii oo ku beeran shinnidii oo uu ku xanaaneynayo iyo sidoo kale digaag oo halkan ku dhaqdo waxa uu rajaynayaa mustaqbalka fikirkaasi in uu noqdo mid miro dhala isla markaana uu shaqo uga abuuro dhalinyaro badan sida uu ii sheegay malabkaas aad looga faa'iideystay anoo hadda $390 gadanaa dadkiina waxa waaye marka dimiiraysan soo wacay dhahan magaalada Soomaaliya inta uga qaadna baabuuraan geena xarunta maqribkiyaan hoosheeda galna garabkiyaan inta galna garbaha kala baxna xariisana maqribka ay ku joogo u meerna markaan u ka dhameeyno isla habeenkaas garbaha shinida u xaraynaa mashiin ku meena lama jijibsho gacan iyo waxa macnaha wasaqay lama aado